ciid wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan isoo boodna la socotaan halkani waa shacabka t v-ooda la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo caalamka intiisa kale. ciid mubaarak. ilaahay ha naga aqbalo acmaasha suuban, ilaahay ha naga aqbalo salaadda aan dukannay, sujuudda iyo rabbi tuugga iyo ducada iyo takbiirta intaba. intaa ka bacdi dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, maanta waa maalintii udxiyada sadaqada la bixinayey, dadka tabarta yar ee walaalaha ah baahida laga dhowrayey, farxaddooda maxaan ku idhaahdaa iyo sidii ay u farxi lahaayeen la adkaynayey oo la xoojinayey. sidaas daraaddeed duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay, dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay, oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah ee deegaanada qaar ka jira waa la ogyahay, waana la garanayaa. sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan, iskaalmeeyaan walaalaha ay tabartoodu gaaban tahayna maalinta farxadda leh ee maxaan ku idhaahdaa udxiyada la bixinayo in ay deriska iyo dadka danyartaa intaba si gaar ah loogu qasdo in sadaqada la gaarsiiyo, in maxaan ku idhaahdaye loo tago carruurtooda iyo ayagaba in laga farxiyo. sax maaha, ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay, ilmahaagu ay faraxsan yihiin oo aad wada ciidaysaan, dariskaaguna uu dabkoodu dansan yahay ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin. sax ma aha. walaalaha Soomaaliyeed deriska ka bilaaw, dadka taagta yar ee meelaha gaarka ah ku xeraysan, waxa aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso. yaraan iyo badnaan ma kala laha, qalbiga waay waxa ilaahay uu daalacanayo, aanuu maxaan ku idhaahdaa ajir iyo xasanaad iyo dembi dhaaf intaba kugu siinayo. wax hormarso, ilaahay abaalkeeda waad ka helaysaa. intaa kadib waxaan idana ku darayaa dardaaranka walaalayaal in la isku qalbi furnaado, la isku qalbi fayoobaado, la iscafiyo, oo walaalkaaga aad wax ka tabanaysa maanta maalin ka habboon oo aad cafi lahayd ma jirtee inaad cafiso oo aad tidhaahdo ilaahay dartiis ayaan ku cafiyey. sidaas daraaddeed ayaan dad wada nool, qalbigoodu wadasan yahay, waxa rabbi ay ka tuugaanna wada helayo aan noqonaynaa marka quluubteennu ay isku furan tahay oo quluubteennu ay naxariistu ku jirto oo aan isu naxariisanayno, iscafinayno, isxaq dhowrayno, is-ilaalinayno. meeshaas waaye meesha nimcada ilaahay iyo naxariista ilaahay ay ka soo degaysa haddii alla yidhaahdo. walaalayaal mar kale waxaan leeyahay sadaqada, iscafinta, isu naxariisashada, iswalaalaysiga intaba waa inaha ugu muhiimsan ee dadkanagu maanta ay baahida ugu badan ay u qabaan. walaalayaal hal iscafiyo, walaalkaaga muslimka ah ee Soomaaliga ah cafi, hadduu wax kaa bi'iyey cafi, wixii tegey nooma soo noqonayaan, dadkii naga dhintay nooma soo noqonayaan, inta nool ayaa dhowrid naga rabto. maanta ayay tahay in aan berri iyo berri daba qurxan haddii alla yidhaa aan ka fekerno. marka sidaas daraaddeed Soomaaliyey meel kastoo aan joogno aan iscafinno, aan heshiinno, aan walaalowno, waxa aan wada leennahay aan ka wada shaqayno. waxa aan gaargaarka u kala leennahay waa ka shaqayn karnaa, ee waxa aan wada leennahay aan ka shaqayno. ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, allaha barakeeyo, waxa ay haystaan allah u kordhiyo. intii masaajidkan dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba allaha barakeeyo. niyaddii sameed ee ay ku dhiseen, ay ku soo fikireen, ee ay muxuu ahay xoolahooda ugu horeenna ilaahay beddelkeeda khayr qaba allah siiyo. masaajidkan tabarrucaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo walaalo ah ayaa dhisay, khayr badan allah ka siiyo. dhulkana dawladdaa bixisay, masaajidkana dadkaa dhisay. diintu sidaasaa dawlad iyo dadba mas'uuliyad ay nooga wada saaran tahay. ilaahay idinkii si gaarana dawladdu way u sii saaran tahay. waan ilaalinaynaa, waan dhowraynaa, wixii horu marinaayo diintaan samaynaynaa, wixii maxaanka dhaqankeeda xoojinaayo ayaan samaynaynaa. ilaahay idinkiis dadka Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka ah walaalayaal, diinta ilaahay waa waxa aan ku midaysannahay, nasiibka aan leennahay inaan boqolkiiba boqol muslimiin noqonno, sunniyiin ahaan, shaaficiyiin ahaan, yacni inaan midaysannahay, dhinac walba ka midaysannahay tilmaamay. midnimadaasi wanaagsan ee ilaahay uu hadiyada noo siiyey aan ilaalinno. waxa ka soo sokeeya intaas waa camal adduunye iyo maxaan ku idhahdaa damac bini aadan ay ku soo dhammaanayaan, aan iska ilaalinno.
ummad fursaddaanoo kala haysata ee noocaan ah ee isku maxaan ku rahaa hal ummad ah dhalasho wadaagta diin wadaagta af wadaagta deegaan iyo maxaan ku rahaa dhaqan suuban wadaagta intaba adduunyada kuma badna waa naxariista ilaahay aan ka jawaabno naxariista ilaahay aan ka jawaabno oo wanaag iyo naxariis dhexdeenna isu naxariisanno aan uga jawaabno haddii aan la yidhaah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan uu qaadanayaa arday kooban oo la barayo diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul quraan online wixii faahfaahinta inta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashada idinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan uga hambalyeynaya guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyadaas oo ku aadan ciid al-adha al-mubaarak ee sanadka hijriga 1443 ciida al-adha al-mubaarak waxay astaan u tahay hurid la huro nafta iyo maalka ayadoo lagu raali gelinayo Ilaahay waxaan runtii u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee geesiyaasha oo habeen iyo maalin u taagan naf iyo maalna u hura sidii ay u sugi lahaayeen amniga shacabkooduna nabad ugu noolaan lahaayeen waxaan rajaynayaa maalmaha ciida inay si laabaan dadaalkii ay awalba ku jireen sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee waxay haystaan u soo huray una diray walaalahooda abaaraysan ee abaartu saameysay si ay u badbaadiyaan ulana qaybsadaan xanuunka ay abaaruhu keeneen waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay si laabaan dadaalka ay wadaan si ay u badbaadiyaan walaalahood waqtigan adag ee aan ku jirno oo ay waxa ay haystaan wax uga siiyaan mar kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaana Ilaahay ka baryayaa in ciideeda kale uu inagu gaarsiiyo bashbash amni iyo barwaaqo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warkaad kala socoteen daawadayaal shabakada wararka ee shacabka TV taxadirkani waa inaga intaa waad ku mahadsantihiin daawashada wararka waa inoo qaybaha kale wararka nabadgelyo